hadda ay yiraahdo waxay ka dhigan tahay inaan ahay nin Hindu ah haddii ay yiraahdo salaamu calaykumna waxay ka dhigan tahay inaan ahay nin muslima iyo way adiga hadda ay yiraahdana waxay ka dhigan tahay inaan ahay nin yaw balse intaas oo dhan aniga ma ahay danteedu waxay tahay aniga runta inaan sheego Hindiyo dhan waxaan ahay shakhsiga midayn lahaa dad siyaasiyiin waxa jira kursi ku loolamaya misana masaakiinta baabiinaya BKR xisbiga oo wato waa xisbi waqti walba u taagan danta dalka iyo waliba shacabka masaakiinta ah annagu waxaan taageersanahay ninkaas aniguna shakhsi ahaanteeda waxaan nin ka dhidhin doono dalka ka shaqayntiisa iyo midaynta shacabkayga waxaan ahay shakhsiga runta taaban doona mana ka gambanay xaqiiqda waxay tahay runta waxay tahay tan kale ciidanka dalka gaar ahaan kuwa booliska shacabku waxba uma qabtaan runtana ma sheegan kuwa saxaafadda dalka ka shaqeeyana waxay waqti walba ku indhasarcaadsan yihiin ciyaaro iyo waxaan loo joogin doonaan shacabkana waqti walba lagama yaabo inay fiiriyaan waxay fiiriyaan kaliya danooda iyo bariiskooda iyo ilmaha carruurtooda ku guursanayeen waa 40 ma waxaad rabtaa been inaan naga gado naga dhaadhiciso haddaan nahay shacab weynaha dalka Indiya ku nool kaama yeelan taas waxaan rabnaa anaga ninkaas wuxuu ku dhintay inaan ogaano been ayaa noo sheegaysaa kulaha kaaladay wuxuu sheegay ninkan oo aniga ma aamin ku dhahay aamin ama hay aamin waxba igama gelin balse tifiyada iyo jaraa'idada waxay soo qaraan waqti walba waad aamintaan sidee aniga markay igu aamin weyse taas aday ku talaa wax shaqo aan ku leeyahay habeeratee ma jiraan saddexdan idin soo sheegay waxaa jira mid ka qatarsan oo waliba sida maskiyo kale ah 6 sano ugu dambeysay ayuu duqa la soo shaqeeyay xisbigaasna guulo fara badan ayay gaareen guulahaasna waa ninka kaliya ee ka dambeeyay dhaqdhaqaaq walba uu sameynayna BK kor ayuu kala socday wuu ilaashanay balse cid bili aadana oo ninkaas taqaanay ma jirin sababta ma taqaanaan xisbigan muddo 35 sano ah ayay ku guuleysanayeen misana talada ay hayeen sababta ma taqaanaan ninkan iyo xulfadiisa ayaa waqti walba garab siinayay ninkan cid u guurgashay malaha aqoontiisa iyo meesha uu joogo iyo waliba halka uu markaas ku sugan yahay balse annaga waa u kurgalan waa soo ogaanay Dubai ayo arrimo ganacsi yar oo foolxun ku haya waqti walba la soo taagana BK ayaa badbaadin jiray sababta ma taqaanaa aydin su'aale iiga jawaaba Stephen Sambali yuu yahay aydin sheegay xisbi walba dalkan ka dhisan saaxiib ayuu leeyahay hadday ahaa lahaayeen kuwa muslimiinta iyo kuwa Hinduuga intaba yaana ka tagin Kristaanka hatta saaxiib ayuu lahaa ni horta adigu saaxiibkay baa tahay saaxiibnimada igama ka raacisay waqti walba garab aan ku siiyaa maxaa keenay marka warbixinteeda TV-ga inaad ka dayso yaasa u shaqaysaa xaasinimo shaqay rabtaa haleeri xaasa ka damacsan doorkaas horta xaasinimada iyo waxyaabahan aad ka sheekeynaysid meel iga dhig aniga muhiimadan leeyahay waxay tahay xisbiga IUF warbixinta aad ka haysid in aad si tafaasiil aad igu soo gudbisay kadibna TV-ga aan ka sii daayo Facebook ayaa live u soo fariisataa TV 5 milyan iyo ka badan oo qofood ay daawanayso ayaan rabaa muuqaalka inaan ka baahiyo haddii aad diyaar u tahay waxaad shaqay rabtaa kowdhe adaan rabaa mid inaan ku weydiiyo TV-giina waa qaris gelisan kowdhe laakiin lacagtaas xaggee ka keentaan yaase idin siiyo idin qaris geliyo waxaasi miyaa wax weyna dacayadaha aan dadka u samayno shirkadaha ganacsiga ayaan hayaysiinta ka wadaa muuqaalka inaan duba diyaaraan u ahay niyo dhaqaalaha adeeshid xaguu kaa soo golaa sideese u nooshaa ii sheeg nin waniga horta waa iska boodboodaa beledkaygan shaxaata ma kowdhe wixii xariiftana wixii beena oo isku dara asxaabta aan la shaqeey markay sheeko kale ii keenaan ama dhinac kale maqal ay ii bilaabaan aniga keligay iskay u istaaga markaas wariye madax banaanaan noqday faamilki iyo qaraabadii aan wax iiga sheeg bal taas mala soo sheegi kara kowdhe 8 sano jiro faamilkii oo dhan waa israaceen macnaha waxaan ka wadaa waa geeriyoodeen oo sawirkaad ka wadaa miya waa xaaskayga iyo gabadhan dhale macnaha xaaskayga dhashay xaaskayga iyo gabadheedana waaba ay iga tageen magaaladay galeen okay adiga ma soo booqatid miyaa gabadhaada maya xaaskayga gabadha way igala tagtay marka waan isla hadlay xooga keligaya yoomay asxaabteedana waxay moodeen inaan waashay isbitaalka waalida istereedsa i wadeen waa i geeyeen cirbadana waa leela dhacan ku dhahay xaaskaygana gabadha inay iga wadata qalad kumaysa lahayn waa waxa aniga aan ka shaqeeyay markaas isbitaalkana in muddaan ku jira markaas kadib ayaan soo baxay dabadeed markaa isbitaalka ka soo baxayna waxaa lay sheegay xaaskayga inay geeriyootay deriskan ka wareystay 1 2 3 recording waa u socdaa quarter diyaar baan ahay inaan doobo waliba Monabati waa ninka xisbiga maalgeliya ninkan wariyaha ah ee TV-ga dubayna wuxuu rabaa xogta Monabati inuu ogaado iyo waliba cidda u diidan Monabati xisbigaas inuu maalgeliyo muhiimadan u fadhiyo halkaas wasaas okay dhib male Monabati lacag badan ayuu haystaa waana u kharash gareyn karaa ee arrimaha dahabka adiga maxaad kala good that's a point midaan rabaa taas Qurayshi Abraham ninka la yiraahdo maqashay horta waa gangster weyn oo ku dhaw wax walba daba gadiya ninka xisbiga fangarayana waa asaaba amarka laga qaataa idhigeysaniyo gambar siin iyo mugambo sheekadooda ma ii keenta aniga no idhigeyso
qolada shaydaamada ee adduunka dhan maalgelisa ma taqaana adiga aqoonsi illuminati Mr. Governor aniga halkan uma iman Illuminati iyo Mugambo iyo sheeko noocaas inaan ka hadlo Steven ayaan warbixintiisa rabaa maxaad cadayna oo aad haysaa oo dadka aad u soo bandhigi kartaa Stephen waan aqaanaa balse cadayn wax ah kama hayo haddaan cadayn ka helo banaankan keenaha waa kashifa xabsiyana ku okaadi maxaa dhacad ilaa Facebook ayaa live soo gashay kadibna waxaa tir ninkan Lucifer ayaa la yiraahdaa waqtiga hayga baabiin haddaad cadaynaysi horkeen niyo jabka ma daristiin kale ninkaas cadayn waan ka hayaa balse ninkaasi waxay sayaan Bobby oo xisbiga hadda gacanta ku haya asagana waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka